haweenka ka ganacsada suuqa magaalada Boosaaso ayaa cabasho weyn ka muujiyay oramada ku soo qulqulaysa magaaladani Boosaaso waxayna baaq dheer ugu direen dawladda Puntland Soomaaliya in ay ka joojiso oramadaasi maadaama maanta ay jirto xanuuno oo ka mid yahay coronavirus sidaas darteed ayay dawladda Puntland waxay ka codsadeen in oramadaasi ay ka joojiyaan xuduudda Puntlandna ay soo xidhaan oramadu dhib bay nagu haysaa dalkoodii bay saa uga soo dareerayaan fayraska way wataan wax celinaya male Puntland waa sii daysay oramadu toban bay iridisu taagayaan waxa weeye suuqii meel laga maray waa lalaayay وعافمد حمها جدا عافمد حمها جدا دولة رالي وقام ما يقابطان وعليان دلكو دي كعليان انت بابور كريان مقالة ورما هايستا وحوي والأمن قود إنك السقوط صومها مقالة ودن كبدلين أمن قود إلا السقوط عافمد كحقيسة تي إلها ما لنا دولة دي سيدي سي وعلى الرأي العليا ورمضة محاضرات كان الله نحرس بندوق على قاعد بدن تدكو يجا يستلعنا يا مسلم بيننا هاي إلها بنا إلهنا يا بندوق بدن دولة بدلين كقاعد ضدك oramadaasi dhib bay nagu haysaa dhibka ay nagu haysaa waxa weeye waxay wadaan bacteria iyagoo nadaafad aan lahayn iyagoo hooyay lahayn iyagoo aan lahayn meel ay wasaqda isaga dhaqaan dadkii shacabka ahay way soo dhaxgaleen dadkii shacabka haday soo dhaxgaleen de khasab wixii ay wadaan way ku soo gaarsiinayaan marka waxaan dawladda ka codsanaynaa sharafta leh horta oramadaas dad masaakiin way inay xariyo u sameeyaan oo inaga dhax saaraan shacabka ka dhax saaraan koow xuduudada in la ka xiran andaaba fayras iyo cudurro iyo wax la sheegayo xuduudada in la ka xiro oo maxaa nala ka celiyo dad masaakiin oo xamaasho oo garbarata aan nahay bandow baan la ku soo rogay bandow hadii la ku soo rogay dib badan buu noo geystay waxa jira dan yar oo waxba nolol maalmeedka heli karinin oo aan haysanin wax in ay ku noolaa waxa ay duurka maanta ka soo qaraabtaan dawladdu bandow soo rogtay shacabkeeda waxa laga rabaa inay hoos u eegto oo ay gacan hoose u fidiso kama xamtiin assalaamu calaykum yaarsho iyaga xuduudkoodii la geeyo innaguna xuduudkeena aynu soo xiranno waa niman caqabad weyn weeye iyaga ruuxooda waaye badina waa laga xiray mari jireen maxaan ku iraahdaa xagga waxa weeye xarga ay ku gaaraan ma haystaan innaga un bayna dul saaran yihiin oo marti inoo yihiin fariinta aan dawladda Puntland waxa way magaceed ha jiro horta waan ku faraxsanahay iyagu ruuxooda si fiican bay maaragtay wax uga qabteen tabartu haba iska yaraato wada waxa weeye meel waliba haday soo xirantay adduunkii dhaqaalaha sheegan jiray maanta khalkhal galay innaguna de awalba dawlad maxaan ku iraahdaa dawlad goboleed masaakiinaynu ahay yeelkadeeda dad dadaalaya baynu nahay dadaalka waxaanu leenahay sidii hore aad u wadeenba sii dadaala oo nimanka ah leena ka xakameeyo oo xuduudkoodii hal la geeyo innaguna hadda xuduudadeena intaynu xiranno aynu maxaan ku iraahdaa aynu sameeyno sidii aynu uga gudbi lahayn caqabadaha iyo dhibta jirto Ilaahay keena sidaasaan anigu leeyahay Ilaahay dhaqaalahana waxa weeye waa liita dhaqaalihi wuxuuna u liitaa meel walba soo xiranta anagoo qaylinayno le dollar baa kacay maxaan ku iraahdaa lacagtii Soomaaliga dhulkay gashay baa haddana waxa hadda taagan hadda isku aamustay waaba isku aamustay laakiin Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa dad haddii jaadkii la joojay oo socodkii kale la joojay oramada maxaa loo joojin waaye maxaa wax looga qaban waaye ma adeegan karno qof wax naga ma gadan karo bacdi bay ku qabsanayaan farahay kula soo galayaan ka xishoon maayaan xitaa heer waxay gaareen ay yiraahdaan mustaqbalka Boosaaso annaga iska leh bay gaareen marka de waxaan dawladda ka codsanaynaa inay wax ka qabato xaaladda caynkaas oo muxuu ahaayay la soo farageliyo hadda waan maqlayay taliyaha booliska Muxyidiin hadalkiisa waan maqlayay laakiin cid wax qabata iyo ficil la gudbiyay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa magaaladani Boosaaso waxaa ka jirtay bando ka bilaabmaysa 6 maqribnimo ilaa 6 subaxnimo maalintiina ay bulshadu shaqadeeda ay sii wato xanuunada haatan ka jira dunida darteed waa Axmed Cabdilaahi Ciise Axmed Cashuur telefishinka caalamiga Somali News TV magaalada Boosaaso ee gobolka